markaas wada soo dhawow waxaan rabnaa wareysi qaybo ka mid ah inaan ka soo qaadanaa qadarkeeyo waa kuma qadarkeeyo magaciisa oo dhameystiran maxaa kala socotaa in Qadar Ibrahim ay qalad tahay isla markaana aabiis oo dhameystiran oo Qadar hadda soo bandhigay iyo sababaha ku kalifay fadlan hadii markii ugu horeysay ay tahay waxa ka codsanayaa inaad muuqaalka like noo dhahdo follow aan noo dhahdo qaybta hoosane aan ku sheekeysano soo dhawaada laga yaabay inaad tiraahdo allo maxay iga maqan aad ciishotid balse waxaad ku ciisho aabihiis oo geeriyooday Allah u naxariistay fanaankan dhalinyarada xilli uu aad u yaraa waxaana lagu magacaabaa Qadar Cabdullaahi inkastoo dadka badi ay dhahaan Qadar Ibrahim laakiin asiga ayaa sheegay in aabihiis geeriyooday magaciisa oo dhameystiran isla fanaankan ayaaba sheegaya balila daawo abiga saxda aniga wuu geeriyooday Maxamed Qadar Cabdullaahi ayaa la yiraahdaa soo markaa markii waxa uu leeyahay ma waaminsan yahay hadii waalid aad heysatay isla markaana qayb kamid ah waalidiinta ay maqan yihiin ee aad ku jecel yihiin kuna ixtiraamayaan waxaad ka dhigan tahay uu leeyahay inaad haysato jecel dhameystiran oo aadan xasuusan karin waalidiinta maqan maanta waxay tahay ama aadan dareemaynin in yacni still jaceelkii beri aad jaceelkii shalay aad rabtay maanta in aad haysatid berina in aan anigu sii sameeyo family nololna sameeyo ma sha Allah ilaahayna family qurux badan wuu siiyay darkeeyo waxa uu dhahay hadii waalidiintaada qayb kamid ah ee sida hooyo oo kale ay ku daryeelayaan ama dareenka ku muujinayaan aadna ay ku jecel yihiin waxaad ka dhigan tahay inaad weli haysato hooyayaal ku jecel waxaan ahay laga jaray ama is uqdadeeyo ama yacni maskaxdeeda ay gasho hadii maanta sidaas ay heli lahayd ama adduunkan ay ku joogi lahayn iyo maanta sida ah haysatid maxay ku kala duwan yihiin farqiga darkeeyo waxa uu dhahay waxa ugu badan ee aan xasuusan jiray waxay ahaayeen markii aan arkay walaalo isla socda ee si wada jir garbaas kaga heesto ayaan dareemi jiray qaybta walaaltinimada iyo sidoo kale waxyaabo kale oo qalbigay ku soo dhacayo yiri yacni arko dhalinyaro hooyi aabe haysto ama ciidaho kale markii la dabaaldegay ee la socdaan guilty waan dareemi jiray kayo wareysigiisa sidoo kale waxa uu ku soo daray in qofka bini'aadanka oo runta ka hadlo isla markaana xaqiiqada oo taabto iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay noloshiisa duruufihii ay soo mareen iyo xilligan duruufta ay ka soo gudbeen marxaladda ay taagan yihiin waana fanaan runtii taariikh dhaba ka sheekeynayo bal mar kale la daawo maskaxdaada aad tusisid inaad runta ka hadli kartid yacni waxyaabihii noloshan ku soo marana aad dadku u gudbin karto u sheegi kartid xaqiiqatan waxaan ku nooleen nolol iska normally ah lowna ahayn hayna ahayn waxaan degnayn guri iska reer iska danyara ahayn guri iska danyara degnayn balse qadarkeeyo hadda waxay u tahay maalmo qurux badan wuxuu tirtiri doonaa xasuusii hore hadda waxay u tahay maalmo ka duwan maalmihii nolosha maxaa yeelay qayb kamid ah waalidiintiisa ayuu la qaadanayaa farxad والله تنتيدا دائب وانشا tan iyo yaraantaada waalidka ay kuugu dambeysay waxaad gelaysaa xasuus dheer waxaad xasuusanaysaa gocasho dheer qadarkeeyo toddobaadkan waxay u tahay toddobaad u gaar ah toddobaadkan waxay u tahay xasuus gaar ah isla markaana mar qura ayuu muuqaal farxad muujinayo dareenka daba socotana soo bandhigay bartiisa kulkula agaasima abdu wala dhalta kulkula agaasima abdu wala dhalta